رئيسل وزراء إثيوبيا أبي أحمد ayaa sheegay in geeska Afrika aanu heli doonin nabad iyo xasilooni waarta haddii Itoobiya ay sii ahaato dal aan marin badeed lahayn. Waraysi uu siiyay telefishinka qaranka Itoobiya ayuu Abi ku sheegay in deked la'aantu toos u saamayso horumarka dhaqaalaha iyo tartanka caalamiga ah ee Itoobiya. Waxyaabaha ugu waaweyn ee Itoobiya u diidaya in ay noqoto dal isku filan oo la tartami kara dhaqaalaha caalamka waa deked la'aan, ayuu Ra'iisul Wasaare Abi. Wuxuu sidoo kale ka hadlay saamaynta xiisadda bariga dhexe gaar ahaan xidhitaanka marin biyoodka Hormuz, isaga oo sheegay in ay saamayn ku yeelatay dalal badan oo ay Itoobiya ka mid tahay. Qof kasta wuu fahmi karaa in marin biyoodka Hormuz uu yahay arrin nolol iyo geeri ah, ayuu yidhi, isaga oo ka digay saamaynta ay leedahay hakad ku yimaada marinada ganacsiga caalamiga ah. Ra'iisul wasaaruhu wuxuu shacabka Itoobiya ugu baaqay in ay yareeyaan isticmaalka shidaalka inta laga helayo xal waara oo ku saabsan caqabadaha saadka iyo tamarta. Wuxuu carabka ku adkeeyay in Itoobiya oo ka mid ah dalalka ugu dadka badan Afrika ayna sii ahaan karin dal aan marin badeed lahayn, isaga oo arrintaas ku tilmaamay mid si toos ah u saameynaysa jiritaanka dhaqaale ee dalka. Abi Axmed ayaa sheegay in dawladdiisu ay wado qorshayaal lagu yareynayo ku tiirsanaanta dekedaha dariska, sida horumarinta tareenada, wadooyinka waaweyn iyo xarumaha kaydka badeecadaha. Dhanka kale wuxuu tilmaamay in xalka muddada fog uu yahay in Itoobiya hesho marin badeed, isaga oo ku baaqay in arrintaas lagu xalinayo wadahadal iyo isfaham heer gobol ah. Ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa ku jira dadaallo uu dalkiisa ugu raadinayo marin badeed, isaga oo raba in Itoobiya ay yeelato marin badeed oo si toos ah u maamusho oo ay wax kala soo degto kana dhoofiso. Haddaba hadalkan ka soo yeeray ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abi Axmed wuxuu si cad u muujinayaa istiraatiijiyadda cusub ee Itoobiya ku wajahan helitaanka marin badeed, arrin muddo dheer ahayd caqabad dhaqaale iyo siyaasadeed oo dalkaasi haysatay. Dulucda hadalka Abi wuxuu sheegay in Itoobiya aysan gaari karin horumar dhaqaale oo buuxa iyada oo aan lahayn deked u gaar ah, iyadoo ay deked la'aantu wiiqayso tartanka caalamiga ah. Xiisadaha caalamka gaar ahaan kuwa ku saabsan marinada muhiimka ah sida Strait of Hormuz ay si toos ah u saameeyeen Itoobiya. Arrintan waxay leedahay dhowr dhinac oo muhiim ah. Kow, Itoobiya waa dal ku tiirsan dekedaha dalalka dariska, gaar ahaan Djibouti. Taas macnaheedu waa kharashyo sare oo saad ah, ku tiirsanaan siyaasadeed iyo ganacsi, amni iyo istiraatiijiyad. Marka uu xirmo marin sida Hormuz, shidaalka iyo badeecadaha muhiimka ah ayaa saameynaya dalal badan oo ay Itoobiya ku jirto. Taasi waxay kordhinaysaa cadaadiska ah in Itoobiya hesho marin ay si toos ah u maamusho. Hadalka Abi wuxuu fariin u dirayaa dalalka dariska ah in Itoobiya doonayso xal wada hadal ah, laakiin sidoo kale ay arrintan u aragto mid lama huraan ah. Itoobiya waxay sii xoojin doontaa wada hadallada ay la leedahay dalal kale xeebaha, waxay sii horumarin doontaa kaabayaasheeda gudaha, tareenno, wadooyin. Xiisado siyaasadeed ayaa ka dhalan kara haddii arrinta si khaldan loo maareeyo. Hadalka Abi Axmed ayaa ah oo keliya mid dhaqaale, balse waa mid istiraatiiji ah oo saameyn kara mustaqbalka geeska Afrika. Itoobiya waxay si cad u muujinaysaa in marin badeedku yahay arrin aysan ka tanaasuli doonin, taasi oo ka dhigaysa mid u baahan dheelitirnaan siyaasadeed iyo wadahadal taxaddar leh.